bal waxaan eegaynaa aragtida caafimaad ee Tians haddaba. Tians haddaba waxay soo saartaa daawooyin dabiici ah oo kuwaas u kala baxa 3 qaybood, sidoo kalena waxay qabtaan 3 shaqo muhiim ah. Waxay u kala baxaan budo, waxay u kala baxaan caleenshaah, waxay u kala baxaan sidoo kale qaybta kaniiniga. Sidoo kale shaqooyinka ay qabtaan 3 shaqo muhiim waxa weeye waa safayn in jirka ay ka dhaqdo dhammaan qashinka ku jira dhan, nafaqeyn in jirka ay quudiso, iyo adkeyn difaaca jirka, taasoo in difaaca jirka ay adkeysado. Haddaba waxaan eegnaa 3 xagalka caafimaad ee adigu marka aad soo marto waxaad helaysaa ka hortag dhammaystiran. Baliinka waxaan u gudbinaa daawooyinka qaybta safaynta loo isticmaalo. Daawooyinka qaybta safaynta iyagoo sharaxsan haddana imika wada galno, waxaan eegnaa daawada la lipid metabolic tea. Boxka halka aad ku arkaysaan ee shaahu ag saaran yahay magaciisa waxa la lipid metabolic tea. Haddaba waxaa loo isticmaalaa xanuuno fara badan, qandhada, daalka, haraadka, carab qalalka, sidoo kale labada keliyada beerka uu safeeyaa, caloosha saxarada wuu jilciyaa, gaaskana wuu fiican yahay, wadnahana wuu fiican yahay, hurdo la'aanta iyo neerf xanuunka laftiisana wuu fiican yahay, jirkana wuxuu siiyaa firfircooni fara badan. Haddaba daawadaasi waxay isticmaali jiray boqorka Chinese iyo boqortooyada Chinese muddo 5,000 sano ka hor, waxaana laga sameeyay geedka loo yaqaan Genistoma. Spirulina capsules. Spirulina capsules inkastoo ay tahay qaybta nafaqeynta, laakiin misna haddana waxay qabataa shaqo qeysan saara, taasoo ay tahay in labada keliyood iyo beerka ay safeyso, caloolkana sidoo kale ay baabiiso, wadna xanuunka dheefshiidka laftiisana qayb bay ka qaadataa. Sidoo kale waxay u fiican tahay timo jajabka iyo ciddi jajabka iyo finanka ka soo baxa wajiga iyo harooyinka. Sidoo kale waxay u fiican tahay HB-ga yar iyo sidoo kale nafaqa darrada. Chitosan capsules. Chitosan capsules haddaba waxay ka mid tahay borotiinada qaybta safaynta, waxayna safeysaa labada keliyood ee beerka, waxayna ka saartaa dhagaxa keliyaha iyo dhagaxa beerka iyo dhagaxa xameetida. Sidoo kalena waxay sameysaa caloosha way socodsiisaa iyo waxay baabiisaa gaaska. Sidoo kale waxay dishaa xanuunka loo yaqaan typhoidka, sidoo kale borseelka iyo xanuunada kale jirka ku jira. Sidoo kalena waxay baabiisaa gooryaanka. Sidoo kalena waxay u fiican tahay inay jirka ka dhaqdo dufanka iyo sidoo kale xaydha ku jira, sonkorta saa'idka iyo cusbada saa'idka jirka ku jirta inay ka saarto. Sidoo kalena grape extract waxay qabataa shaqo safayn ah, sidoo kale waxay u fiican tahay xanuunka wadnaha. Cellular revolution, slimming tea, vitality iyo double cellulose. Haddaba daawooyinkan kale waxaa loo qaatay iyagana qashin saar ahaan. Cellular revolution waxay u fiican tahay dabcan in dhammaan unugyada jirka oo dhan ay shaqadooda hagaajiso, misna qashin saar ay sameyso. Sidoo kalena slimming tea waxay u fiican tahay in dadka ay caateyso. Sidoo kale vitality waxay u fiican tahay dabcan jirka inay qashin saar ku sameyso, misna waxay u fiican tahay lafaha iyo sidoo kale himada. Sidoo kalena double cellulose waa qashin saar dabiici ah, misna wuxuu u fiican yahay in caloosha uu socodsiiyo, sidoo kale bawaasiirtana inuu la dagaalamo. Daawooyinka qaybta nafaqeynta ee adkeynta difaaca jirka baan fiirinaa. Haddaba nafaqeynta waxaa loo isticmaalaa laba daawo, cordyceps iyo sidoo kale spirulina. Labadoodu waa isku shaqo. Cordyceps waxay u fiican tahay xanuunka wadnaha, sidoo kalena daalka u fiican tahay, sidoo kale waxay u fiican tahay energy darrada iyo sidoo kale waxay kor u qaadaa HB-ga. Spirulina lamid. Labadoodu waxaa loo isticmaalaa nafaqeyn ahaan. Bal waxaan eegnaa inka qaybta adkeynta difaaca jirka waxaa loo isticmaalaa zinc waxay daweysaa 16 xanuunada ku dhaca ciyaalka, way daweysaa dumarka kuwa ku dhaca iyo sidoo kale dadka waayeelka kuwa ku dhaca iyo dhalinyarada. Sidoo kalena waxay sameysaa guud ahaan in ay u fiican tahay hargabka iyo sidoo kale adkeynta timaha iyo sidoo kale aragga indhaha laftigiisaba. Sidoo kalena calcium chewable capsules dabcan waxay u fiican tahay bawaasiirta iyo sidoo kalena dhammaan xanuunada ku dhaca lafaha iyo murqaha. Sidoo kale calcium 1 waa budo, waxay u fiican tahay dhammaan xanuunada jilbaha iyo murqaha iyo sidoo kale lafaha. Calcium 2 waxaa loo isticmaalaa xanuunka diabetic ama sonkorta. Calcium 3 waxaa loo isticmaalaa nafaqa ahaan iyo wuxuu u fiican yahay dhammaan dadka oo dhan. Hooyada uurka way isticmaali kartaa, nuujisada way isticmaali kartaa, sidoo kale ciyaalka ragga way isticmaali karaan, waana curiye nafaqeed oo muhiim weeye. Sidoo kalena calcium 4 waa kaniin capsule weeye, wuxuuna u fiican yahay dhammaan xanuunada neerfaha oo dhan iyo hurdo la'aanta iyo xanaaqa iyo stresska badan. Sidoo kale Oral-Care toothpaste waxa weeyaan waa Colgate-ka shirkaddu ay sameyso oo lagu talagalay adkeynta ilkaha iyo xanuun baabi'inta ilkaha laftigeedaba. It's never too late haddaba to adapt an health lifestyle. Yani weli waqti kaaba tagay guud ahaan in adigu aad hesho caafimaad fara badanba. tababarkan intaas ku leeyahay caafimaad badan rajay insha Allah idinka dadkiina dhan soo waxaad ilaahay see you at the top.